ميدون كدور بس حق ولا محمد بحق ولا عليه الصلاة والسلام النبي يسمح لها واي أنا مسكان ده ريان ده واحد تاعي نك إنا واحد بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مقعيقو وعبد الرحمن بعردة waxaan joognaa magaalada Boosaaso waxaan ku jiraa bishii barakaysaneed ee Ramadaan ee khayrka badnayd insha Allah ta'ala galabta waxaan dadweynaha magaalada Boosaaso weydiinaynaa su'aalo diini ah taas ay ku mutaysanayaan hadiyado qofkii ka jawaaba su'aashaas insha Allah ta'ala hadiyadaha halkan ku jira isaga dooranaya waa loo kala furaya wixii aad jeceshahay ka dooraya qofka la oranaya insha Allah ta'ala marka barnaamijkaas dadweynuhu waa nala jooga insha Allah hadba qof baa noo imanaya barnaamijkii tijaabi heerka aqoonta diimeed su'aal baan ku weydiinaynaa barnaamijka waxaan u talagalay dadweynaha magaalada Boosaaso qofka su'aasha ka jawaaba abaalmarin buu helayaa hadiyadahaas mid ka dooranaya insha Allah ta'ala magacaaga iyo adoo ku bilaabaya magacaygu waa maxaa Faarax Xasan bismillah maxaad Faarax Xasan aad baa u mahadsan tahay su'aashan ku weydiinay maxamed waxay tahay waxaad sheegtaa habeenka Laylatul Qadriga la yiraahdo ajar ahaan ama fadli ahaan inta uu dhigmo habeenka Laylatul Qadriga la yiraahdo inta uu dhigmo isku day bismillahir rahmanir rahim wuxuu dhigmaa kun habeen kun bilood maxamed waxa uu yiri habeenka Laylatul Qadriga ee bisha Ramadaan 10 dambe ku jira waxa uu dhigmaa 1000 shahrin ama kun bilood jawaabtaasi waa mid aan rajaynaya oo saxda ahayd aad buu mahadsan yahay wuxuu xaq u leeyahay inuu helo abaalmarin haddana hadiyadii baan guddoonsiinaynaa ku soo dhawo barnaamijka tijaabi aqoonta diimeed magacaaga عول آدم بشير waaya cawil su'aal baan ku weydiinaynaa insha Allah ta'ala barnaamijkan ugu talagalay bisha Ramadaan su'aasha haddii ka jawaabtid hadiyad baad helaysaa hadiyadiina halka diyaar ku tahay insha Allah adigaana ka dooranaya diyaar ma u tahay ديار waayahay su'aasha cawil ku weydiinaya waxay tahay waxa aad sheegtaa shantii nabi ee quraanka lagu sheegay ee la isku oran jiray ulul azmi xitaa qayb kamid ah isku dayna sheegtid waxa sheegtaa shantii nabi ee quraanka lagu sheegay iyo ulul azmi la isku oran jiray insha Allah isku day qayb kamid ah xitaa haddii sheegtid insha Allah abaalmarinta waad helaysaa شندي ما اسمي shan nabi oo quraanka lagu sheegay oo ulul azmi la isku oran jiray واي أنا مسكان ده ريان ده واحد تاعي نك إنا واحد برتو أو حقوب صدق لكن واحد برشيز ما كود دالو إيمانك إلهي يسيو إلهي توفقنا إلهي وافجيو إن شاء الله أعظم ما سنت إن شاء الله أعظم ما سنت هاي هديتنا وعليها هذا إن شاء الله قفك كقيب قالوا واسينا ميدون كدور بس حق ولا محمد بحق ولا soo dhawo barnaamijka su'aalaha diiniga ee bisha Ramadaan aan ugu talagalay magaciisana waxa la dhahaa barnaamijka tijaabi heerka aqoontaada diimeed insha Allah waaya magacaaga magacaygu walaal waa Maxamed Mir Saciid waa dhawahay magacaygu waa Maxamed Mir Saciid walaal qaali waa dhawahay aad baa mahadsantahay Maxamedow insha Allah barnaamijku soo dhawow su'aashaan ku weydiinayna waxay tahay waa maxay farqiga u dhaxeeya nabi iyo rasuul in badan baad maqashay farqiga u dhaxeeya nabi iyo rasuul waa maxay waa sax walaal qaali waxa u dhaxeeya nabi iyo rasuul nabi waxa loogu talagalay inuu kitaab hore oo soo degay inuu dadka u sii sharxo rasuulna waa nabi iyo rasuul buu isku wataa wuxuu kitaab gaar ah soo soo dejiyay walaal qaali isaga rasuul weeye dad baa ummad baa loo soo diray gaar ah aad baa u mahadsantahay magacaaga muxuu maxamed aad baa u mahadsantahay hadiyadahan mid ka doora aad baa u mahadsantahay barnaamijka ku soo dhawow tijaabi heerka aqoonta diimeed oo aan ugu talagalay bisha Ramadaan insha Allah su'aal baan ku weydiinaynaa diini ah su'aasha haddii aad ka jawaabtid insha Allah abaalmarin baad helaysaa
kusoo dhawo magacaaga waa dhawaay magacay waa maxamed maxamed cabdilaahi aad iyo aad baan ugu dhaw waaya maxamed maxamed cabdilaahi soo dhawo walaalo aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijkan ka soo qayb gashid insha Allah barnaamijka waxaan ugu talagalnay in dadku ay ku dhiiradaan barashada aqoonta diinta waana shay aad u muhiim ah qofka adduun iyo aakhira anfacaya su'aashan maxamed ku weydiinayna waxay tahay waxaad sheegtaa khaliifkii saddexaad ee khulafaa raashidiinta waxaad sheegtaa khaliifkii saddexaad ee khulafaa raashidiinta su'aasha haddaan isku dayo khaliifka saddexaad ee khulafaa raashidiin waa Usmaan bin Affan Usmaan bin Affan aad baa mahadsan tahay maxamed waa ka jawaab su'aasha la weydiiyay waxa uu yiri khaliifkii saddexaad ee khulafaa raashidiinta waa Usmaan bin Affan jawaabtiina waa uu saxay aad baa mahadsan hadiyadahan baa mid ka dooranaysa insha Allah ta'ala tii ku qancisa waa kiishid ayaad ka dooranaysaa ما شاء الله أضو ما سنت محمد برنامجكي تجابي هيرك أقونت الديمات وحن قلت لك قبل بشهر رمضان سؤال بالجويدين يا سؤال شاس وتكتشوا بيسا هديت قرتيد أول مرين بحرك كود يارسن أول مرين تاس إن شاء الله تعالى أذهليسا مركور مقع كبلون مقعي وبلا عثمان عبد الله وهي هاي بلا عثمان عبدي وأضو نقول فرح سنة هنا برنامج كسوق يبقشيد إن سؤال شان كويدين يا وحى هاي waxa aad sheegtaa nabigii loo soo diray fircoon ama rasuulkii loo soo diray fircoon si uu waxyiga diinta u gaarsiiyay ayaad magaciisa sheegaysaa عليه الصلاة والسلام نبي اسمه ها نبي موسى nabigaas muxuu ahaa نبي موسى aad baa u mahadsan tahay su'aashii la weydiiyay ninkan odagay waa ka jawaabay runtii aad baan ugu faraxsanahay inuu ka jawaabay su'aashii la weydiiyay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad aqoonta diinta aad sii badiso insha Allah waayahay mid dooqaaga hal mid ma ka dooranaysaa aad baa u mahadsantahay ha walaal ku soo dhawo magacaaga iyo barnaamijka heerka tijaabi heerka aqoonta diimeed weeyaan insha Allah taa magacaaga aad ku bilaabaya waa dhawaay walaal magacayga Cusmaan Deeq Maxamuud weeyaan waaya Cusmaan Deeq Maxamuud aad baa u mahadsantahay codkaaga inaan kor u qaadido in yar soo dhawo su'aal baan ku weydiinaynaa su'aasha haddii aad ka jawaabtid abaalmarin baad helaysaa abaalmarintiina waa tan hal ku diyaarsan su'aashan ku weydiinaya waxay tahay waxa aad sheegtaa nabigii ugu dambeeyay anbiyada am nabi ilaahay soo diro kii ugu dambeeyayba oo lagu soo khatimay ayaad noo sheegaysaa su'aasha hadaan ka jawaabo nabigii ugu dambeeyay anbiyada nabiyullaahi maxamed wa alayhi salaatu wasalaam nabiyullaahi maxamed su'aashan weydiiyay waxay ahayd nabigii ugu dambeeyay anbiyada ee loo soo diray runtii aad buu uga jawaabay wuxuu leeyahay waa nabiyullaahi maxamed wuxuuna abaal u helay ama uu mutaystay inuu abaalmarin helo aad baa u mahadsantahay كدورو أبال مريتها ما شاء الله أضعوا ما سنت إن شاء الله برنامج هذا برنامج كم جالس يسوي حالات تجابي هيك أقونتها الديمات وحنا نقول ترى قال بشهر رمضان قفك سؤال بالويدينا يا سؤال شاس هديه كتشواب أبال مرين بحرك كديار سنة سجانا كدورنا إن شاء الله وسؤال عشان كويدينا إنه واحد هاي واحد سكتا إن واحد سيجيسا saxaabada ninkii ugu horeeyay ee nabiga kaleey salaam rumeeyay ninkii ugu horeeyay ee nabiga kaleey salaam rumeeyay ayaa sheegaysa magacaaga ku bilaabay magacaygu waa Mawlid Xuseen Jaamac hadda aan sheego saxaabigii ugu horeeyay nabiyullaahi maxamed rumeeyay wuxuu ahaa Abu Bakr Siddiq aad baa mahadsantahay Mawlid su'aasha Mawlid weydiiyay waa uu ka jawaabay ninkii ugu horeeyay nabiga kaleey salaam rumeeyay wuxuu Abu Bakr Siddiq siday ahayd buu nooga jawaabay insha Allah wuxuu xaq u leeyahay inuu abaalmarin helo aad baa u mahadsantahay insha Allah barnaamijyada dambe ka qayb iska waxa la tijaabi heerkaaga aqoontada diimeed bisha Ramadaan ayaan ugu talagalnay dadweynaha magaalada Boosaaso ayaan weydiinaynay qofka su'aal baa la weydiinayaa su'aashaas ka jawaabaya haddii uu ka jawaabo abaalmarin buu helayaa abaalmarintiina waa tal ku diyaarsan oo aad u jeedin insha Allah adoo magacaaga ku bilaabaya barnaamijkan ku dhowda magacayga waa Sharmaaka Cabdiqaadir barnaamijku waa ku dhawaay ويا أضع ما سنت الشرمارك وأضع نقول فرح سنة هاي إن برنامج كغير جشيد سأشان كويدينا واحد سهاي واحد شيء يسا إن نبي يحوت كل قي نبي القرآن كله شيء يحوت كل قي أيام مجلس عيسى شيء يسا إن شاء الله تعالى نبي يونس أتحيي القرآن نبي يونس وي ما شاء الله الشرمارك سأشان ويديه وهاي واحد سكت نبي القرآن كله شيء يحوت كل قي واحد وير نبي يونس وأنا جوابتي أن رجيني الصحة هاي أدو ما سنيهاي هذا نحو حق له هاي إن أول مرة للسيو بوكس كان يقدرنا يوحي عشبيه سك
السلام عليكم وبرنامجك تجابي هيركا aqoonta diimeed oo bisha Ramadaan aan ugu talagalay waliba dadweynaha magaalada Boosaaso su'aal baan ku weydiinaynaa diini ah waad ka jawaabaysaa haddii aad ka jawaabtid halka waxa inoogu diyaara abaalmarintan baa inoo diyaara insha Allah wixii dooqaaga aad kala baxaysaa oo aad ka dooranaysaa way su'aasha ku weydiinayno waxa ay tahay waxa aad sheegtaa laba kamida magacyada caruurtii Nabiga Cali salaam waxa aad sheegtaa laba kamida magacyada caruurtii Nabiga Cali salaam laba kamida uun ba sheegaysaa magacaaga ku bilaabaya kor u qaado bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Shaakir Axmed Ismaaciil haddaan ku bilaabo magaca nabiyada ciyaalku dhalay Faaduma iyo Qaasim aad baa mahadsan tahay su'aashaan weydiinay magacaaga muxuu ah Shaakir su'aashaan weydiinay oo ahayd waxa sheegtaa laba kamida magacyada caruurtii Nabiga Cali salaam waa uu ka jawaabay waxa yiri Qaasim iyo Faadumo aad buu u mahadsan yahay wuxuu xaq u leeyahay in abaalmarin siino way dooqaaga diyaaraysaa mid waxaad rabtid baad ka dooran kartaa juuskana waa hal mid weey aad baa u mahadsan tahay insha Allah waxaan rajeynayaa barnaamijyada dambe inaad ka qayb gashid baan rajeynayaa waxa la tijaabi heerka aqoontaada diimeed waxa lagu soo gudbiyaa kanaalka aragtida Tolmoon waana barnaamij aan ugu talagalay bisha Ramadaan in dadkaan uga faa'iideyno waliba dadweynaha magaalada Boosaaso su'aal baan ku weydiinayaa su'aashaas aad ka jawaabaysaa marka aad ka jawaabtid waxaad xaq u leedahay inaad abaalmarin heshid insha Allah ta'ala magacaaga ku bilaabaya bismillaah magacaygu waa Shaafici Yuusuf Cabdulaahi waayahay magaciisu waa Shaafici Yuusuf Cabdulaahi Shaafici soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka naga qayb gashid su'aal baan ku weydiinayaa su'aashaas waxa ay tahay waxa aad sheegaysaa isku darka ama guud ahaan shanta salaadood ee faradka inta ragcadood ay ka kooban yihiin waxa sheegtaa guud ahaan shanta salaadood ee faradka ay qofka lagu waajibiyay inta ragcadood ay ka kooban yihiin waxa weeye 17 walaal markaas ku dardarsado 17 ragcadood 17 ragcadood weeye aad buu mahadsan yahay magacaaga muxuu ah Shaafici Yuusuf aad baa mahadsan tahay su'aashaan ku weydiinay waad ka jawaabtay waxaad xaq u leedahay inaan abaalmarin ku siino insha Allah ta'ala barnaamijyada badan dambe inaad ka qayb gashid aan rajeynayo insha Allah way mid ka dooro aad baa mahadsan tahay Shaafici aye waxa ku soo dhawaataa kanaalka aragtida Tolmoon ku dhawaad aad baa mahadsan tahay barnaamijka waxa la tijaabi heerka aqoontaada diimeed su'aal diini baan ku weydiinaynaa su'aasha haddii aad ka jawaabtid waxaad leedahay abaalmarin barnaamijkan waxaan ugu talagalay dadweynaha magaalada Boosaaso insha Allah ta'ala waayahay su'aashaan ku weydiinaynaa waxay tahay Maxamedow magacaaga Maxamed Faarax Jamac magacaaga Maxamed Faarax Jamac waxa su'aashaan ku weydiinaynaa waxay tahay waxa aad sheegtaa tiirka labaad ee tiirarka islaamka ayaa sheegaysaa waa iimaanka weey iimaanka may tiirarka islaamka ay ku taagan yihiin shanta tiirka koowaad oo shahaadateynka ka labaad baa sheegaysaa salaada weey waa salaada aad buu mahadsan yahay Maxamed Faarax su'aashaan weydiinay ee aad waxa sheegtaa tiirka labaad ee tiirarka islaamka jawaabtii aan rajeynayna oo saxda ahayd buu kaga jawaabay wuxuuna xaq u leeyahay inuu qaato abaalmarintii uu mudnaa waana ka qaybgalihii u dambeeyay ee barnaamijka galabta ee aan ugu talagalay bisha Ramadaan ee aad tijaabi heerka aqoontaada diimeed haddana abaalmarintii baan siinaynaa waana tii ugu dambeysay weey aad buu mahadsan yahay Maxamed Faarax insha Allah waxaan rajeynayaa barnaamijyada dambe inuu ka qayb galo intaa waxaa inoogu eg barnaamijkii qiimiga badnaa ee aad tijaabi heerka aqoontaada diimeed oo aan ugu talagalay bisha Ramadaan barnaamijka ayaa ku soo gudbinaynaa kanaalka aragtida Tolmoon ujeedkan barnaamijka u soo gudbinaynaa wuxuu yahay in dadku ay ku dhiiradaan barashada diinta waa shayga arintaas waa shay muhiim ah oo qofka laga doonayo waayo wax adduun iyo aakhiraba anfacaya insha Allah ta'ala barnaamijkan waxaan ugu talagalay dadweynaha magaalada Boosaaso insha Allah waxaan rajeynayaa barnaamijyada dambe inaad la socotaan rajeynayaa aad baa u mahadsantihiin